السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن ونكسن داودايال qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dagaaladii xoogana ee ka dhacay maanta galbeedka Itoobiya ayaa TPLF waxay ku sheegatay guulo waaweyn sidoo kale TPLF waxay video ay soo dhigtay warbaahinteeda ayaa waxay sheegtay inay tahay diyaarado dagaal oo maanta howlgal ka wada waqooyiga dalka Itoobiya sidoo kale TPLF waxay soo bandhigtay ciidamo aad u fara badan ay ku sheegtay dagaalkii maanta inay kaga qabatay huwantii ay dawladda federaalka hogaaminaysay sidoo kale qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dawladda federaalka Itoobiya ayaa sheegtay inay TPLF ka qabsatay dhul ballaaran oo ka tirsan deegaanka Canfarta sidoo kale dawladda federaalka Itoobiya maanta tababar waxay u soo xidhay ugu yaraan 10,000 oo askari oo ka qayb qaadan doona dagaalka lagula jiro kooxda TPLF sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa safar gaaban wuxuu ku tagay dalka Senegal qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 7 bisha 9 2021 hadaynu u guda galo wararkeena oo faahfaahsan kooxda TPLF ayaa maanta dagaaladii xoogana ee ka dhacay galbeedka dalka Itoobiya waxay ku sheegatay guulo waaweyn TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay gabiyahanba cagta marisay ciidamadii huwanta ah ee maanta ay dagaalka la gashay sidoo kale TPLF waxa ay sheegtay in ay diyaarado dagaal oo howlgal ka waday waqooyiga dalka Itoobiya gabiyahanba inay dhulka soo dhigtay TPLF oo meediyaheeda ku baahistay sawirada diyaaradaha oo gubanaya ayaa waxa ay sheegtay inay diyaaradahaasi duqeymo ka geysanayeen waqooyiga dalka Itoobiya dagaaladan maanta dhacay ayaa waxa la sheegay inay usbuucyadii hore dagaaladii socday ay ka cuslaayeen kooxda TPLF mooda maalmihii ugu dambeysay inay guulo waaweyn soo heynaysay ayaa waxaad moodaa bandhiga ay maanta soo bandhigtay diyaaradaha ay soo riday iyo dagaalada xoogan ee maanta ka dhacay galbeedka dalka Itoobiya inay tahay awood labaad oo mar labaad soo laba kaclaysay TPLF ayaa maalinimadii shalay ahayd waxay sheegtay inuu hub casri ah gacanteeda soo galay oo dalka Itoobiya loogu deeqay khaasatan xukuumadda Abiy Ahmed ay ka soo iibsatay dalka Ruushka TPLF ayaa dagaalkii maanta waxay ku sheegtay inay gacanta ku dhigtay ciidamo ka badan ugu yaraan 3,000 iyadoo sidoo kale shalay maalinimadii shalay ay sheegtay inay ciidamaynta ka badan ay dishay dagaaladan dib uga soo cusboonaaday galbeedka dalka Itoobiya ayaa la garanayay meesha uu salka ku furi doono ama meesha uu ku biyo shuban doono sidoo kale kooxda TPLF ayaa maanta dagaal xooggan ka waday galbeedka gobolka Canfarta ayaa waxay sheegtay inay halkaas ku qabatay maleeshiyad badan oo ka tirsan kuwa Canfarta TPLF oo dagaaladeedu maalinka ka sii dambeysay kor u sii kacay ayaa waxa la mooday usbuucyadii ugu dambeysay in hoos u sii dhacayay hase yeeshee shalay maanta ayaa TPLF awoodeeda mar labaad ay muujisay sidoo kale kooxda TPLF ayaa waxay sheegtay 2 diyaaradood inay maanta ku soo riday waqooyiga dalka Itoobiya diyaaradahaas ay ku sheegtay inay yihiin diyaaradaha ciidamada cirka ee dalka Itoobiya diyaaradahan ayaa TPLF waxay sheegtay maanta inay basaas ka wadeen gobolka Tigray haddana ay duqeymo ka fulinayeen meel ay kaga sugayeen ciidamada TPLF gobolka TPLF ayaa awoodeeda kor sii qaaday maalmahan iyadoo ahayd habeennimadii xalay markay waraaqda soo saartay TPLF ayna u sheegtay beesha caalamka iyo midowga Yurub inay TPLF tahay awoodda koowaad ee Itoobiya cid kastoo Itoobiya inay wax ka weydiisan rabtana ay diyaar TPLF u tahay dalkana ay TPLF ka talin doonto sidoo kale TPLF ayaa waxa ay sheegtay inuu waqtigii Abiy Ahmed dhamaaday beesha caalamka adduunyada inuu isku mashquulin dawladda Abiy ay TPLF wax la qabto si dalkan Itoobiya nabad lagu soo dabaalo sidoo kale dawladda federaalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay in ay maanta ka qabsatay magaalooyin badan oo muhiim ah kooxaha TPLF ka wada dagaalka gobolka Canfarta dawladda federaalka ayaa waxa ay sheegtay dagaalkii maanta ka dhacay gobolka Canfarta inay gabiyahanba cagta marisay maleeshiyadkii TPLF ka socday ee ku sugnaa gobolka Canfarta dawladda ayaa waxa ay sheegtay ugu yaraan 5 tuulo oo deegaanka Canfarta ka tirsan inay maanta gacanteeda ku dhigtay maleeshiyadkii TPLF ka socday ee joogay cararaya wax dhumay inay noqdeen dawladda ayaa guulo waaweyn ka sheegtay gobolka Canfarta iyadoo maalmihii ugu dambeysay maamulka Canfartu uu qayladhaantiisu aad u soo badanaysay iyagoo sheegay inuu deegaanka Soomaaliduna dagaal ku soo qaaday TPLFna ay dagaal ku soo qaaday dawladda federaalka ana wax maslaxa iyo wax awood kale kuma qunisana inayn haynin maamulka Canfarta ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka cabanayay in awoodaha TPLF soo baxayaan iyadoo usbuucyadii hore la sheegay TPLF inay gantaal ku garaacday magaalada Sameera ee caasimadda gobolka Canfarta
maamulka Cafarta ayaa aad uga cabanaya TPLF inay ku hayso cunaqabatayn iyo dagaalo waaweyn iyadoo kala dagaalamaysa dhaqaalihii ka soo galay gobolada kale ee dalka Itoobiya oo sheegtay TPLF inay isku sii balaarinayso dhulka Cafarta. maamulka Cafarta oo maamul aan aad u awood badnayn ayaa baryihii dambe dagaalo waaweyn wajahayay asagoo xagga deegaanka Soomaalidana dagaalo kaga socdeen iyo dhanka kooxda TPLF oo xadka kale leeyahay gobolka Tigreega. maamulka Cafarta ayaa maalmihii ugu dambeeyay dowladda federaalka qayladhaan balan u dilay oo sheegay in ciidamo badan soo gaadheen hase yeeshee guulaha ay dowladdu sheegatay ayaan ahayn wax ka madax bannaan inta afka ka soo baxay waxaan ka ahayn dowladda federaalka. TPLF ayaa maalmihii hore waxay ku taamaysay inay qaban doonto caasimadda gobolka Cafarta jabi ahaana maamulka Cafarta ay kala diri doonto hase yeeshee dowladda federaalka ayaa maanta guulo waaweyn sheegtay in TPLF in dhul badan laga xoreeyay. sidoo kale dowladda federaalka Itoobiya ayaa maanta waxay soo bandhigtay ciidamo aad u fara badan oo ku sheegtay inay yihiin ciidamo ku biiri doona dagaalka lagula jiro TPLF. dowladda Itoobiya ayaa waxay wadaa dardar gelinta ciidamada Itoobiya si loo sii badiyo tirakoobkooda ama tiradooda. ciidamada Itoobiya ayaa ahaa ciidamadii ugu awoodda badan qaaradani Afrika inta la xusuusto ilaa dhowr dal mooyeen. hase yeeshee dowladda Itoobiya ayaa intay dagaalka ku qaaday waqooyiga dalka Itoobiya waxaa la sheegay in awoodda ciidamada Itoobiya hoos u dhaceen. sidoo kale dowladda Abiy Ahmed ayaa ilaa waqtigii ay dagaalka TPLF ku qaaday waxay wadaa dardargelinta ciidanka dhismaha iyo qalabaynta ciidanka dowladka magaalada Diridhaba tababar loogu soo xiray ugu yaraan 10,000 oo askari. sidoo kale maantana waxaa la sheegayaa intaasoo kale in tababar loo soo xiray. tababarka badan ee socday ciidamada Itoobiya ayaan la garanaynin meel ay ku dambeyn doonto maadaama tababaradan socday wali wax tayo oo soo kordhiyeen ayna jirin. dowladda Itoobiya federaalka ayaa waxay sheegaysaa in ciidamadii hore Itoobiya ay ahaayeen ciidamo ay haystay TPLF oo isku haleyn badan la qabin hubkii loogu talagalay in TPLF kula dagaalamaan ay TPLF markasta gacanteeda gelinayaan. Dr. Abiy Ahmed ayaa waxaad moodaa inuu dib habeen ka wada ciidamada dhexdooda una rabo ciidamo asaga aqligiisa iyo tababarkiisa ku yimid inay yimaadaan oo TPLF si daacadnimo oo la dagaalama sida uu wax u rabana ugu fuliyaa. sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa la sheegayaa maanta inuu safar gaaban oo qarsoodi ah ku tagay wadanka Senegal. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa baryaha dambeba wuxuu waday olole siyaasadeed oo kaga hortagay kooxaha TPLF taageero weyn oo ka helay qaaradani Afrika. Dr. Abiy Ahmed oo siyaasi daayar oo hadana waqtiga uu xilka qabtay caqabado waaweyn kala kulmay kooxda TPLF ayaa isku dayay in kooxda TPLF batay inay aad u adag tahay meel ay u dambeyn doontana aan la garanaynin. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.